بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل كاستا oo aad joogtaan kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee diiradda Kalsan oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee Kalsan barnaamijka toddobaadkan waxaan si gaar ah diiradda ugu saari doonaa qulqulatooyinka iyo dhibaatada ka aloosan kililka shanaad ee Soomaalida wixii la oran jiray ama hadda loo bixiyay Somali State iyo dhinaca Oromada gaar ahaan magaalada Dirdhabe iyo khilaafaadkii ugu dambeeyay ee dhexmariyay dadka Soomaalida ah iyo kuwa Oromada ah arrimahaas ayaan jecelnahay in barnaamijkeena aan si gaar ah diiradda ugu saarno barnaamijka waxaa igu marti ah Ustaad Ciidruus Maxamed Cabdi Afsagaaro oo falanqeeya arrimaha kala duwan ee caalamka gaar ahaan arrimaha Afrika iyo geeska Afrika si gaar ah ugu dhundalola ugu horeyn waxaan jeclahay bal inaan iraahdo mar kale bal ku soo dhawow barnaamijka diiradda ee TV Kalsan ahlan wasahlan Ismaaciil walwado toddobaadkii ugu dambeeyay iyo ka horba intii bilooyinkii ugu dambeeyay sanadkan markii la soo bilaabo 2018 iyo ka horba waxaa dhacay dhibaatooyin dhexmarayay dadka Soomaalida iyo Oromada kuwaas oo dad badan naftooda ay ku waayeen markii hore waxaa la oran jiray maamulkii hore ama rejiimkii hore ee ka talinayay kililka shanaad oo iminka loo yaqaano Somali State oo Ethiopia ayaa ku lug lahaa ama dabada ka riixaya hadda maamulkii meesha uu ka baxay maamul cusub ayaa yimid waxaad u malaysaa wali in dhibaatadii ay taagan tahay oo cabasho badan ay ka yeerayso dhinaca Soomaalida oo ay ka tabanayaan dhinaca Oromadii waxay ku tilmaamayaan Soomaalidii inay ayada dhib ka wado ama dhulboob ay u jeedo marka bal arrimahaas maadaama aad xoogaal u tahay oo dalkaasna muddo badan aad ku nooleed oo ka warhayso dhismaha bulsho ahaaneed ee Soomaalida iyo guud ahaan Etoobiyaanka kale ee halkaas ku noolba bal faahfaahin inaga sii si gaar ah Dirdhabe ama xadka u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada iyo khilaafaadka ka soconaya waxa ay salka ku hayaan marka ugu horeysa walaal Ismaaciil waxa muhiim ah in la fahmo root cause sabab saldhig maxaa ah runtii ruqankii la dabada kaga taagan yahay ma kacda leer inta aan la gaarin Ethiopia inta aan la gaarin OLF Oromo Liberation Front inta aan la gaarin ONLF dadka ku dhaqan dhulkaas min galaadi ka bilow ilaa ay fikta u sareysay erar iyo isagee ilaa iyo waxaad geysaa meesha ugu koreysa ee shaca iyo maxamed Jabuuti iska galaan dadka ku dhaqan misu dhaqan yihiin aqliyan tajaanus ama hadii kale wax wada qabsi ma leeyihiin dhibka maanta haysta isku meel ma kaga soo jeedaan dhibkii dhacay ee bulsho gaar ah ee mucayan ah khaasatan sida maartay ciise gurgure geri darbaaxadii ku dhacday ee godadkii iyo wixii loo qoday xanuunkeeda aan wada qabno laakiin ka Soomaali ahaan dhulka inta la eg dadka inta la eg ee ka bilaabmay galaadi galdogob gaaraya fikta me isi erer naazireed hada ma agteeda ka soo noqonaya balbaleyti dadka ku dhex jira dad uu ka warqabo maamulka hadba ka taliya ama kayfaaf la dhaho ama hal yiraahdo Somali State hal yiraahdo ama Somali Ethiopia hal yiraahdo xanuunkeeda iyo dhibkeeda iyo tiradeeda ma iska warqabtaa Soomaaliyo meel ma u taala xanuun Soomaali dad Soomaali dhibka ay qabaan inta kaleeto ha joogto Tigray agordaad ha joogto muxuu ahaayo ma tasani ha joogto maaragtay amxaara meesha ugu xageysa way sugyihiin dhaqan ay kaaga talagalayna jira oo ah inaad tahay Soomaali ayakan Ethiopia ay yihiin oo taas wax xaq oo nin ka gaban kara ma waayahay anaga yaa heshiiya xisbiga shacbiga Soomaalida maqalnay
xisbigan shacbiga soomaalida shacbi soomaaliyeed oo isu tegay oo isu dhan oo xisbigaas ka mida ma haynaa maya qolo nabad qaadatay oo aan la fahed iyo qolo nabad diida oo aan la fahed waan kusoo laaban doonaa arrimaha sida marka kooska arrinta waxay tahay anagiya xaggeena aysan ka ahayn anigii adiga haddaan wada soconno oo arrinta dhibkana haysato isku noo taabanayso waxay lahaan lahayd macnay lahaan lahayd midda soomaalida dib aan ugu soo laaban doonaa hadda waxaad ka dhawaajisay in qowmiyadaha kala duwan ee Ethiopia gaar ahaanna Oromada sidoo kale waxaa jaar la ah Amxaarada oo kale ka soo qaad Tigreega oo kale cafarta oo kale haddaad doonto raaci ma waxaad leedahay intoodaasba way ka midaysan yihiin inay iyagu Ethiopian yihiin oo dalka ay ka xigaan Soomaalida oo waxay u arkaan Soomaalida inay tahay qolo ka baxsanba afartoodaas kale oo ka gaar ah marka waxaad leedahay waxaa jira isbahaysi si uun ka dhaxeeya qaybahaas kale ama qowmiyadahaas kale ee aan hadda ka dhawaajinay oo qiiradeeda leh oo wadineedeeda leh oo isku duubkeeda leh oo lagu arko marshuftaaba lagu arkayo in la yidhaahdo meeshaan dadkan degan Soomaali waaye kama horeynin isbedelka Ethiopia ka dhacay ee 91 in qof kursigaas soo gaara xukuumaha Ethiopia cabra taariikh 150 boqor intaasoo kun oo boqoloo sano 2000 ay tirsanayso Ethiopia in la dhaho horta Soomaaliya iska leh surgogobi dad soo tallaabay dad oo boqorka Ethiopiaanka naxariista badnaa kii u dambeeyay weliba uu daaqsimo ku jooga yaa la ahaa dad xaq iyo xuquuq leh oo walaal ah Afrikaanimo kula siman gumaysi uu saayelo isku dhex waxeeyay ee ayaga la mid oo la xuquuqaho dadkoodii la dhasheen ay ka sii gadaalayaan ma loo arkayn waxaana loo arkayay dad joogto maartay dulsaar ku ah Ethiopia isku meelna laga yahay isku xami ah iyo isku spirit iyo isku maartay muwaadano ayaka ka dhab ah oo adna aad ku tahay in lagu sii kala dilay oo lagu sii kala qaybiyo la yiri kan kula socda laaluush kan ka socdana gumaad qodax ku gashay mid iskaga siibtid iyo midaad ma aragtay ku gashay ha noqoto dhibaato noocaas jiri jirtay marna ma dhicin haddii maanta imaanayn spirit in Soomaali aan nahay maanta bilowta state Soomaali oo buuxa aw waxay aad gobol ka tirsan Soomaalida Ethiopia la dhibka ugu weyn ee jira wuxuu yahay tiro koob xataa markii la qaadayo dadka waa la kala qaybinayo waa soo laaban doonaa xagga tirada iyo numberka oo kale gobolkan Soomaalida Ethiopia ay degto hadda Somali state loogu magac daray bal waxaad noo sheegtaa juqraafi ahaan deegaanada kale ama qowmiyadaha kale ee Ethiopiaanka ah ee xadka ay la leeyihiin ama xuduudda ay ka dhaxayso Soomaalida meesha degto iyo qowmiyadaha kale ku hareeraysan ee xadka ay leeyihiin ee laga yaabo inay isku tallaabaan amaba xuduudo kala qaybiya deegaanadooda ay wadaagaan maxaa kamid ah afar oo kor inta kale 90% ah waa Oromo wax yar oo bulsho gool cad meel ka soo galsaa jirta ismana gaarno dhulka loo ogol yahay ma qowmiyadda koobaad ee ugu dhul weyn ugu badan waa Oromo qowmiyadda labaadana saddexaadna la geliyaa saddex maxaa ku geliyaa dhul siyaasadna loo ka xukumay dhul aan haddii aan joogno xataa ay Soomaalnimo sheegan karin buxugma fogaanta umaab ahaan u fogaaday darteed maamulka annaga iyo dadka aan markasta ethnic assimilation isku dhex milmi karaan siraac maartay multaqal xadaaraad maartay xadaaradaha iyo dadka kulankooda darisnimadooda luqadda xataa la isdhex gali karo arkaysa Soomaali markii Oromo ku hadlaysa isleedahay ma Oroma iyo Oromo af Soomaali ku hadlayso markii hadlay isleedahay ma Soomaaliya afar saasoo kaleeto weeyo dadka laakiin xukunka iyo cadaadisa wada saarna Oromo iyo Soomaali cabra taariikh waxa wadanka u toogaysan jiray Tigray iyo Oromo iyo Amxaara u taageersan jiray labada marka waxa si kala saarna mid maraaxil kan Soomaalida sii darna dhibka sii saarna dadkii noocaas ah maanta darisna ah walaalana ah isqaba waxaad arkaysaa dad aad u fara badan oo Soomaali oo laga qabo gabdho Soomaaliyeed oo Oromo qabto iyo gabdho Oromo oo Soomaali qabto dadka noocaas ah waa dadka aan iskugu badannahay daris karnahay nasiib midayso diinta
nasii midayso ethnic ahaan xataa markii la dhaho dhalasho markii la dhaho xataa isa siixiga waa tahay bal cafarta iyo soomaalida haddaan si gaar ah u dul istaagno maadaama aad sheegtay in xad ay leeyihiin dhinaca kore ama dhinaca bariga ilaa bariga haa marka soomaalida iyo cafarta dhinaca xuduudda ay leeyihiin cilaaqaadka u dhaxeeya iyo iskaashiga ka dhaxeeya bas siduu yahay isku milanka wuu yaryahay laakiin waxaa badan dekana la'aanta iyo dhib la'aanta dagaalamo dhex maraan macno leh guuldarrooyin u kala dhacay sida oromo iyo soomaali xataa xudka beero iskugu dilayaan xuduudka xoolo iskaga kala qaadayaan ma dhacdo cafar inay soomaali ka dhex dhacdo waa dad silmi aan cafarta intooda badan waxaad moodaa xagga diiniga markii la dhahana 100% islaan u yihiin laakiin aqoontaa gaaban inta iyadoo islaan leeyahay xagga oromada mumaarasada diinta iyo shacair ahaan waxa wax barayaba waa qaaluu asalkooda soomaalo macruufu la yaqaano iyo waxaad arkaysaa wallaahi magac ilaahay ciyaar u mari maayo nin aad u fiican oo masaajid nagu tujira adiis wuxuu yiri maalin magaca Soomaali iyo fasir markaasaan dhahay masiinkan meelo ka yimid ma aqaano laakiin doo maal waay dad hanti lahaanahay wax bixiya loo martiyo tasarruf badanaan hal saac qosle mar dambe wax kuma weydiinayo wuxuu ninkaas igaaray markuu intaas weydiiyay kadib haddaan arkuu yiri Sheekh Maxamed Macalin Cimar Sheekh Xasan Batuun Sheekh Ciise ma artay Sheekh Xasan انت علماء la maqlay awliyo waaweyn la maqlay yiri dib Soomaali waa markaas wuxuu yiri Sheekh Hebel Sheekh Xasan Muuda yaa wuxuu dhigi jiray Hebel wuxuu u yimaadaa asaga oo gaala wuxuu iga tagaa asaga oo kaamil oo islaana waa Soomaali qabiil kasta ha noqoto لأنه أصوب حبك الأجون هجا جوريرمي وحبك الأجون دينته أنا كوب إسلام ما هو قبع لكن حبه ما كلا بحسن أصوب حبرتي إيجا كورس عالم وتجاهل هبل وحقي ما لا أصوب مسلم ورمضوا شيء جاي وحون إيجا تجا أصوب قاعدة محل عي سوح إيجا برنا وفي عنها يهدنا هو سحول إيجا إيكل الجبن الصومالي يهوس يجليه عرقي الصومالي وسيف فضوط يوحون نقون كرتها شيء قاس عقيدة قلبه وقالب وقالن كرتها اسكو سوى الضوب نبقى الجيران مركو وحو ياهي دادك دول سكشده اما دول سقده اما وته ما aragtay xooluhu ku yar yihiin geedkaas bunka geedkaas jaadka xoolo aan badnayn qudaarta iyo baradhada naadi waxa soo dhan dhulku doon waay marka dhibki jira marka wuxuu yahay sida u midaysan tahay Orod Soomaali uma midaysna waxaan ka rabaa marka inaan si gaar ah u ogaano Soomaalida iyo Oromada hadda gaar ahaan dhinacan dirdhaba markaan eegno iyo guud ahaan Soomaalida iyo Oromada waxa sida gaarka ah ay isugu hayaan colaad ka dhex dhalinaysa oo mar walba ay ku dagaalamayaan waxay tahay waxay isu arkaan inay bad yihiin wabigiin Niil yaa isku arka Oromada oo xaqiiq ah maanta waxaan jeclaan lahaa cilada Soomaalidu leedahay oo badan Ilaahay hortiisa dad islah oo islaana oo darisana waa sheeg laha waa ku istaagi laha waxay Oromo isu aragtaa xukunka maanta markay timid waliba xad ka dhac in xukunka xataa hanan waayaan in Abi Ahmed wax kasto jeclaa ay ku socon waayaan damac ku jiro Oromo oo ugu jira ilaa waxaan leenahay Hargeysa Dacarey ilaa Berbera Saas ilaa Garbaharey meesha dameeraha ilaa maartay Gaalkacyo ilaa Gaala laga keenay wax noocaas taaba waagi hore Itoobiyaanka way dhigi jireen ilaa iyo balcadaan leenahay taytay taaba iska hadal waxa aadaanay qolan maanta ku hubaysan oo siyaasiyan inuu u meel mari karto Oromo Republic oo badda gaarsiisan waxa dhahayo 100 milyan in bad yeelan weydo 10 milyan bad lahaatay intaas la eg abxaalada xataa ma Tigrayda ma waa Oromada cudur marka waxa ku jira dad aan ka yareen 10 milyan ilaa 15 milyan وحقيقة مركز اللي تابطه أورومو باجرت نطب وحيري أنا صدح قران لبا قران صدح قران قلت النور مرضى ما قلتمين وما هي سنة كان أسر كسوم الصومالي ما قلت تاني أحمد قري واقلت النور وح اسمه روح بلا قبان كرتان ولا صوت جبير وحين نقاري وان نقاري نور
waxaa haddana maqleegaa soo baxdayo calamaa la qaadanaya soomaaliya israacayso inta soomaali adduunyada israacinaysa waa dhici weysu yiri waxaa galaadi waa tan idin geeyo yiri mar saddexaad 7 yiri in qofka ito amxaarka amarku saan noo fiiriyo oo wariyaa maxaa ii fiirinaysaa ma ku fiirin aniga maa been sheega kaale maanta oo dhan saa haddaadan dhihin wuxuu yidhi qorigaa kuu dheer haddaa cararti yiri waa ka soo gudubnu yiri idinka hadiimada socdo yiri tira badnaan adsaaba joogtaan markaan yiri waxaa dhibiguuhu yidhi aabbihiis afka wuu iloobe kii dhali wuu iloobe awowgay wuu iloobe aniga waa iloobe ilmihi af soomaaliya hadda ku hadlaa aragna meeli ka keenayna ma naqaano yiri dadki marka dhulka dartiisii oromo u yihiin laakiin asalkooda waa Soomaaliya waa loo leynaya waa tahay dad badan waxay ku doodi jireen markii hadda khilaafaadkaas u dhaxeeyay oromada iyo Soomaalida inay yihiin kuwa siyaasadaysan oo salka ku haya qorshayaal ay maleegeen ama shirqoolle ay ka dambeeyeen maamulkii Tigreega ee hadda awoodda laga qaaday iyo waliba maamulkii hore ee kililka oo madaxweynaha hadda maxkamadda saaran Abdi Maxamuud Cumar inay ku lahaayeen marka taa maxaa ka jira ma waxaad leedahay sidooday weligoodba khilaafka oromada iyo Soomaalida uga dhaxeeyay mise waxaa la oran karaa colaadan sideedaba waxaa asal u ah maamuladii tagay ee Tigreega iyo sidoo kale kuwii Soomaalida madaxda ka ahaa oo kale mise waxaad leedahay oromada laftigeeda ayaa hadda soo baraarugtay oo dalbalaarsi samaysay ma kuwii hore ay markii hore kuwaas diyaarinayeen ma oromada hadda markay maamulku qabsadeen ayay laba kacleyn samaysay bal arrimahaas faahfaahin ka sii Ismaaciil tusaale baan ku siin raashina inta noo yaala suuro la yiraahdo ama soor bii aan ku cabnay ma cuni karnaa mise ma cuni karno waa cuni karnaa wax kale haddaan weyno laakiin maxaa qurxiya garow iidan gaaja leeyahay maxaa qurxiya in la helo iidan ama caano la helo arrimaha cabdi ilay wateen Tigray iidan suugay ahayd weligeed arrintan iidan waa wadatay oromo waxaynu ku wadatay weligeed waxay haysatay xukuumad ay ka dambayso ku shaqaystay Soomaaliya xataa laguma shaqaysanin waxay ahayd shufto sorgogobi iyo ahayd xataa laguma adoonsiga xataa looma ogolayn lama dulaysanin waa la leynay laakiin oromo waa la adoonsanayo maxaa adoonsanaysa xukuumadihii jiro Itoobiya Tigray iyo oromo amxaara waxa lagu soo jeedinayna waa annaga xoogaa nolol wixii oo aan la fi oo elf markay soo baxday iyo nolol yeelatay heshiiskoodina macna ma samayn wuxuu ku samayn dhulka fog erer ilaa iyo balbaleyti dhulka jira dadka jooga waxaa loo laayay sida ugu foosho xun UN-kii caalamkii yaa xataa uga aamusay maanta jigjiga waxaa dul jooga 1 milyan iyo bar dad runtooda ay tahay laakiin 500 600 lagu sheegayo waxay tageen station waxay gan xire ciidankii naftirkiisa uu isticmaalay waxaa leenahay oromo oo la bisan iyo oromo warna wadata yaa leenahay waxaa lagu soo gambanaa magac jaarso la dhaho oon jirin oon badnayn jaarso dhibka gaaray Soomaali uma geysan karto waa iyada Soomaaliya runta markii laga hadlay way oromoobaysaa laakiin jaarso dhibka maanta gaaray Soomaali gaaray ee gari gaaray ciise gaaray gurguro gaaray ee qayb yar oo badnayn oo gabooyo kamida gaaray ma gaarin dad ma geysan karaan dhibka intaas la eg laakiin maamul iyo tandiim jira oo caqabada waxaa ka sii daran waa la heshiiyey nidaam cusub ah socda ninka Abiy Ahmed system buu hadda wadaa systemku hadda wada wuxuusan ka hirgelaynin bureaucratic-nimo u dhasheen waxay u fuliyaan laakiin oromada ma aysan ahayn qaabkada aad sheegaysid ereyga aad isticmaalayso waa erey qaab boqortooyo oo kale nidaam boqortooyo ah inay ku dhaqmayaan waxaa loo yaqaano bureaucracy-ga laakiin oromada boqortooyona ma aysan ahayn maamul iyo awoodna gacanta kuma hayn saameynay weligood lagu soo shaqeynay systemkii xeelad saameynay system hadeer la joogo waxyaabo waxaa jira ilaa hadda ka hirgelin bangiga adduun ka hirgelin layahay maaragtay IMF ka hirgelin laadahay oo maamulka systemka nolosha Ethiopia waxay iska tahayba qoy qadaro Umar Samantar hadda kor Ethiopia tagay waagu ka carray gumeysiga hotel la dejiyay tasaan ka siinay hotelka markii la dejiyay qoy barita boqorka lagu geeno xilsaas waxay ku qaatay 6 bilood 7 bilood
qori marka uu qarsaday uu garsaday markii hubka laga qaaday uu garsaday jawaan dhaxdiis iyo si uu qarso furfur wixii soo xirtay hotel raas la yiraahdo magaalada bartankeeda ku yaalo qadiim oo antiga intuu fuul bam markaasna xabad kama dhigadiis dhulka la wada jifto wala soo dhab war maxaa dhacay markaasuu yiri qoy يقدروا هالك دولة يسأرك مرضا بس يسن إثيوبيا معنا بقرك لوجين وين هر لوجين وين نيجي بيسك عروها بقرك إثيوبيا بقرك جيسك أفريقيا يوصل لها قبيس ندير نوع عبر سمتر مركو يري قوي يقدروا دولة يسأرك قوي يقدر سب بالوجين دونا بالواحد صبر دليل بلادو السوق هذا بقرك أرك حباس مركو يري قوي أو دولة يسأرك واتوقت داوع نقطه لكن يدكو داوع يعني توبي اديك انت كان دمهستير قويد محول جدا marka macnaha isaga loo geeyo way boqorka sug laxda sug qoyl dhahay ha qoyl dhaha iyo qadaro sugti iyo qadaro iyo qoy sug iyo wax yar sug laxda marka wuxuu xabado ku dhuftay waa wax yar sugti arkayda duulays marka wax dhaawac laakiin marka wax dhaawac iyo ku dhaawac waxyaalo warkii gaar hal ii keenat marka waxaan ka wadaa wax hore uga ma dhamaadaan hadda ani adiga dirreen labadana waxa la leeyahay qofkaan gardaran iyo kana gardaran ma taalo waaskensada hadana waasken damin waaskaas isku dhibanaanaysan dambi malihid ma jiro waa waxyaabo bureaucraticada dacwaan galeynaa maxkamad sare iyo xukumaysa qabilayda hadaan ka soo bilaabo dacwo kale waa bilaabanay hadana waa la wadaya system noocaas wax dhamaanay ma marka samsaka bureaucratic ana wuxuu lagu heshiinay ee systemka iyo dawladnimadii iyo nidaamka maanta la rabo aan ku soo gabagabeeyo mala zanaaw inta dhimano waxa ka dardaarmo yiri qabiil la ka barna Soomaalida inta kala ka barta qabiilada barna waa tahay su'aashan rabo marka inaan ku weydiiyo Soomaalida iyo Oromada waa laba qowmiyadood oo wax badan wadaaga haday tahay diin deegaan wadaaga xidid sida hadda aad sheegayso kala guursada ma horey ma u dhacday inay wada fariistaan oo odayaal Soomaali ah iyo odayaal Oromo ah inay wada fariistaan wada hadlaan balse dhibaatooyinka ay kala tabanayaan labada dhinac xal looga gaaro abra taariikh maanta mid la wada jirta oo maanta markii loo sadanada ugu weyn guunahan waa mid Ciisa waxaan u qoran yihiin xeerna leh Soomaali inteeda kale degan ilaa ay soo gaarsi jinacsanay ya maanta nolol ku jira oo siyaasad Soomaalida looga xukumay oo Tigreed waxyaabo inay isku dhufto Soomaalida iyo Oromada ay rabtay eeda Soomaalida Oromadu ku soo dhax gashay wax kasto dhaca nin ay tala ka go'do oo guud sida Soomaalida odaga Ciise ay talada intii ka go'do inta kale tan ay u leedahay oo Ciise uu ku gudbay nin Soomaaliyeed u noqday hadduu marka ugaaskaas talarido Soomaalidu u go'antahay marka ugaaska Ciisaha ugaas Soomaaliyeed Ciisaha ka soo dhaxbax laakiin waa ugaas Soomaaliyeed go'aan ku qaato waa lagu bireysan yahay dawladda Soomaalida ka talsacta inay qaadato laakiin ma jiro ugaasaas oo kale ugu bireysantahay Oromo ma jirto dhaqanka kala duwan yihiin Muslim iyo Kristaan hadana sii jira bolosiga dawladda sii jirta waxaana ku xoog badan siyaasadda xoog badan meesha anaga dhaqanku xoog badan yahay siyaasiyiin badan oo Oromo ah mucaaradka u badan Jawhar oo kale uu kamid yahay rag badan oo af Soomaaliga ku hadla waxay ka hadleen warbaahintii ka hadleen waxay sheegeen in dhibaatada ay ka dambeeyaan maamulada ama rejiimada ka jira Itoobiya ka imaanaya haduu yahay kii Tigreega ama kuwii ka sii horeeyay balse waxay sheegeen in wax dhibaato ah ama wax colaada oo u dhaxaysa Soomaalida iyo Oromada inaanay jirin arintaas maxaa loo qaadan karaa waa siyaasad naftirkeedu Jawhar nin raga waay wax badan inuu ku go'anto taladooda hadda u badan yahay inuu go'aankeeda leeyahay waxyaabuhu xusuus dirna markuu hadlay wuxuu yiraahdaa Oromo tihiin Soomaali madaxa inaa ka tumsiina xaq u leedahay inuu xaqa maxaa dhacay qori inta la qaato horta wax la iska dhicin karina bareenu afkana maanta haystaan ay ka baruur wuu damcay inuu dajiyo laakiin maxaa ka weyn waxa ka weyn damca maanta ku jiro Oromo ka weyn damca ku jiro dhul damca ku jira 15 milyan oo maanta Oromo ah inay ka fakadaan ma rabaan
meesha root cause la isku hay taas way 15 milyan oromada 40 milyan sheeganaysa 15 ku goodo iyo Soomaalida 15 milyan lagu 15 milyan asalkooda Soomaaliya Oromo ah laakiin ayaga Oromo isku haystaa Soomaa ma soo haystaan way sogyihiin kuwana waa ogyihiin dhibka jira markuu dhul iyo dad meesha hadda joogaana ma dad gudahooda ku jira waa dad Soomaalida laakiin 15 milyan aad sheegayso oo asalkooda Soomaalida oo Soomaalida hadda asalkooda uu yahay iyaga ma sheegtaan intay banaanka soo istaagaan annaga Oromo nahay asalkeenina wuxuu ahaa Soomaali ama asal Soomaali baan nahay dad ku dooday oo hadda soo taagan oo soo mutaxan ma aha waxay isku ahaan karin geeli ar uma foofo beerley way geedan hindisada dhahan oo basashi waxaan maartay xawaash oo dhan wax isku ah lagu udgiyo dhan beerihi jaadka beerihi cuntada canbihii looskii dhul noocaas leeyahay dad wax u soo faan maaha ma guuri karaan mana ku gafi karaan mana u hubaysna sida u hubaysan maanta uma hubaysan runtii dadka ugu badan waxyaabo waxa jirta afkayga xataa aan ka ilaalinayo bixug ma aan rabno meesha aan ku joogno koonfur in halka nabad ka dhacaysa u rabno Oromo caloolay ku jirtaa makhrajan Soomaali ahna malaha ما فهمي كرت حتى أوروبا وحيقول حيسا أمحارة وحيقول حيسا تجري وحيقول حيسا دبوب أولو أوروبا وضعهن ده يكون جرتها واحد حدود منفذ كون وصومالي ودتك مسلك إسلام وصومالي دتك إسنق وحسين وصومالي ضمير كنوع عاص أوروبا كما أبورنا نبكي جرا مركو وحوي كان كو أبورنا صومالي إن ضد ولا لين يهين كان كو أبورن Soomaalidu ina xataa la isguursaday tan ku abuuran Soomaalidu dadkeen in qayb kamid ay ku dhex jirto kuwan kala xoolana waa leeyihiin beerna waa leeyihiin dhulka Soomaalida waa taqaana geedkaas qodaxda leh sida Soomaaliya tiraahdo Soomaaliya tiraahdo waxa ka rabaa ka dhex galay ma la oran karaa maadaama hadda sida aad sheegayso ay juqraafi ahaan Oromada laga yaabo inay وليس بدل ساريين أما حق الدجانة أو ضد كلا قومية كلا يكون هريسيين أو عرضنا أي كلا نحيسه سيدا تجريجا أو كلا أمحارض أو كلا دبوب كأتشيجي سو كلا لأن عسكر الدين سو هذا بنشانقول كي يقومس كي أي حاجة كسو هريرين يعني وصومالي ده أي تهاي معناها سيدا هذا قلت الماما يسميل هدو يكون بحث كران هو بلار كيل كران لكن إن عكر من الأورا كرا أورماذا وادد من سنة هذا ما أنت يعني أودي دلك عنتك وهيان رئيس الوزراء هو يهي قف أورما ترى أهان إن يهين قومية أقول لان ديريسان دول يضرب خيرات هذا يهين إن يهين يامسيهين مركا سولما أوران كرو كم فكر يانا إن يهدو عرّان أبناء الصومالي أو بحثان ما دام يجا أو دهان يامسيهين إن يسكون فيهين هذا هو البيت القصيد أنت شاك توي وأنا قال استراتيجيان استراتيجيته معها واحد ما أنت كوريال استراتيجيته وأنا قرشين كنت قصنا إصاص عطا أمحار ومقر قرصنا شاتي كدقنيس أو كسوة جنبنيس سيدا وحول دعيان أمحار مقرشينين تجري مقرشينين إن الإسكو مشغول يا صومالي أورمنا وعيارها تجري أمحار أورما إلى أنتي جران كرتها وحنكار لا أنا نيد صومالي ملكس جوكت نيد عصر يسوي تاي سيدا أفكرين أنو كونفور صومالي ديب ساوثن جوكنا وفار ويست وحنكار لنا قلبته وحكى له لا أد نوقفك لوكاس آد كان نوقفك أمحارو يتجري وينالتها جيسك أفريقيا لكن أورومو وحال عيسي صومالي انتهي ماذان إن نقوم بالمين وما أنت أورومو حمر كنا شيء عيد النقدين جننا شيكرنا كورنيلان شيكرنا كورسراكيساس مع عيدك الله قدري عقدان لك قبل أبو اسكدف قلد إهد كلمة الصومالي أبو أورمو لكن قلد لما أذكره استراتيجية حتى أورمو وحيد أورمو صومالي أبو إن كل حجرت واجرت الصومالي أبو نقطة لكن أورمو دي انت هذا بدل ما أهين أورمو انت هذا بدل أورمو إهد أورمو ده بدل إسول أفقار كذا مسلم كذا إن درجتي صومالي حديقتي صومالي هالكاس لو صار استيلي ما يكون عادي حمانا اللي قفلين مدعين جنرال إثيوبيان أو تجريه أمحارة إرتري وين عادي كورنيل طيبا حصل على نكستو قال على وجي لكن علن كصومالي أنت لو صار أو إثيوبي أنت ذيك اللي مجلس أورمان معي ودعي سي
waxay u dhacaysay mar walba inay inteeda kale iskaga dhownahay isku milanay wax isu nahay kala guuri karin tigray waa kala guuri karnaa siyaasaddan kala guuri dawisba maniin amxaara waa kala guuri karnaa laakiin isbiritka qofka soomaaliga uu ku shaqaynayo kuma shaqaynayso oromo tan dhibka taagana marka waxay tahay xukunkan way istuseenay ilaa intee in la eg iyo xukunka hayn karaan ma fikirayaan dad badan waxay isweydiinayaan abiy axmed maadaama hadda xukunka gacanta uu ku hayo oo ra-iisul wasaarihii dalka uu yahay abiy axmed awood wuxuu u leeyahay in uu xaliyo arrintaas maadaama asaga dhalashadiisa nin oromo uu yahay dalkiina asaga uu ka taliyo waa uu soo faragelin karaa oo waa uu heshiisiin karaa soomaalida iyo oromada labadoodaba khilaafkoodana uu xalin karaa dad badana sidaa ku doodaya qaarna waxay leeyihiin arrintan ma ahan arrin wax ka qaban karo abiy axmed laftigiisa oo culaysyo badan oo xagga siyaasadda saaran oo awoodba uma hayo iyo firaaqo badan waqti uu geliyo hadda in dad degaan isku hayo soomaaliya oo oromo ku mashquulo marka arrintaas maxaa ka jira maxaase ka imaan kara mustaqbalka haddii hadda aan arrinta wax laga qabanin ma laga yaabaa in dhibaato badan naf iyo maalba ay galaafato mustaqbalka ha waxay ku galaafanaysaa yuu kaalmaysanaa abiy axmed ka soo qaad ifrit waa dhaqan afrikaan oromo kaalmaysanaa u ka dhasha laakiin oromo uma ah ra-iisul wasaare etoobiya u yahay etoobiya wixii dan u siiya marka waa inuu ku fekeraa in uu soomaali meesha ugu horeyso tagu imid oo u yimid inuu arrinteeda wax ka qabto waxaan arkaynaa 400 million bir ma ka go-aa budgetka kilil 5 oo mustafa cagjar oo hadda soo qabtay ilaa xisaabaad intee la egaa lacagta furan ee socota lacagta budgetka iyo mashaariicda kuman iska dhaaf u taale 400 markuu la siiyey waxay ahayd niyad sami aad u fiican muqaabilkeeda maxay oromo ku jawaabtay maamulkii oromiya 1 milyan iyo bar soomaaliya maanta jigjiga inay ka tuugsadaan oo lasoo barakiciyo dhul iyo beer iyo dad laga soo qaaday 100,000 muu soo gooyo xataa waa maya dadka ka tegey kilil 5 ee oromada ah ama amxaarada ah ama etoobiyaanka markii qalashqalta dhacday sharaaf maahan soomaalidu gafkeedii samaysay laakiin gafkoodu way koobaaday isqabanaya ahaydoo dhaqankaabi ku kalifayo oo magan haddii dirta xataa hadda haddii inta lagu qabto magan noqoto laguma taabanayo seedo lama taabanayo dad waxaa jira maanta etoobiya aan ku noolaan karno soomaaliyooba amxaara ah oo shaqaalinimo ku yimid ciidanimo ku yimid jigjiga xaafad waxaa loo yaqaana kilil sost aad baan dhulkaas uga soo dhex noolaa ma kaalmaysan karo maanta waqti alxaadir weyrixi oromo ku jirtaa weyrixi ay ku jirtana umay weyrixin dhankii la rabay inuu u weyraxdo u foofta xataa hadday weyrixaysa waxay ahayd inay kilil sost u weyraxdo xagga korsii aaday ahayd waayo ma ahayn kaydkeedii dambe iyo dabadeed dambe inuu usoo laabata ma ahayn soomaali ma raadin karto bixukmi xataa xeele salaas ha joogo mingista ha joogo meles ha joogo dhisaliin ha joogo war soomaali ma raadin karto wax ka badan waxeeda waa tahay waxaan rabaa su-aal kale inaan ku weydiiyo oromada sidaa aada muujinayso dad midaysan oo isku raacsan arrinta qadiyadda noocan oo kale ah oo in dhul ay qabsadaan soomaalidana iska soo riixaan soomaalida qowmiyad marka laga tago waa qabaa'il aad u tiro badanaa dega soomaalida ama deegaankaas loo yaqaano Somali State markii hore kililka shanaad la oran jiray caadiyana loo yaqaano Soomaali galbeed dadka qaarna ogaadeen ay ugu yeeraan marka la eego Soomaalida halka degan iyaga ma midaysan yihiin mujtamac ahaan ama cirqi ahaan ama qowmiyad ahaan dad midaysan oo maanta u diyaar garaysan culayskan iyo caqabadahan ka soo wajahaya dhinaca oromada ma tahay soomaalida deegaankaas ma mid hadda ilaahay keenaya dalaaladeed iyo caqliga maanta markii aragta dhibka haysta iyo sida lagu yahay waxaan jecelahay wadciga hadda jira sida uu yahay wadciga hadda jira wuu isku soo jiidi karaa laakiin weligeed ma midaysnayn dhagax buur magaalo ma la yidhaahdaa wixii ka xageeya istaraatiiji ahaan maba la jeclaynba yaan jeclayn ONLF in general maxaa u sababa oon kara ana ONLF maxaa u sababa waxa u soo caqli xumo ONLF waa qabiil جبهة كذا ogaadeen national فرنتمانو هذا هو جبهة جبهة قبيل
jabhad qabiil Ogaadeen waa jabhad qabiil. ayadoo haddana waxay ku wadataa magac Soomaali ku duraysaa oroma sida oroma ay liberation front u tahay jabhadii Soomaalida ay ku midaysay WSLF ay soo ma waa ogahay West Socon Somali weyse. Liberation Front Socon weyse. okay marka oroma Soomaalida hadda kama dhaadhicin kartid qof Soomaali ah oo aan la fahmin jabhad Soomaaliyeed ah kama dhaadhicin kartid laakiin jabhadda waxaa loo arkaa hal qabiil beenta ma oo ogaadeen la yiraahdo Been. oo ogaadeen National Liberation Front marka hadda waxaa rabaa midnimada Soomaalida qabaa'ilka dhan oo Soomaaliyeed ma waxay ku midaysan yihiin ONLF maya waa tahay marka midnimada Soomaalida igala hadal midnimada Soomaalida xagga deegaankaas midnimada Soomaalida saldhig waxaa looga dhigtaa jigjiga qadig jigjiga wixii saaska oo meesi naazireed kulaala dadka ummadda ku dhaqan tan iyo tiro iyo tay iyo dhul mid ka yar ma aha haddayba u dhigmin inta kale markii jigjiga inta laga soo aado caqliga marka meesha yaallaa wuxuu yahay rabiiceeni weligiis noo di'i jiro qabiilka ahaa si foolxun ayuu aga shaqeeyay dhexdeenna waa tahay yaa degan markaad xagga dhagax buur iyo dhulkaas ka xageeya Soomaalida degan ma qabaa'il kala jidwaaq waa tahay oo aan ahayn absame soo gasha ku soo dhacda laakiin jidwaaq absame ogaadeen absame soo maaha jidwaaq absame garwaaq oo soo baxay oo gari iyo inta kaleeto maaragtay iyo muxuu ahaayeto oo waa dhaxdaa soo baxo magaca shaqeeyana ah gurguriyo ciisii gabooyi hawiyo dhan muxuu ahaayeto intii aan kuu sheegayo ee Soomaalida ahayd ee dhex joogtay oo weliba baalacda absame ka mid yahay weyteen absame ka mid yahay ciidaas dad maxaa majarta uu ka mid yahay oo majarteen waa iskooda leeyahay muxuu karanloo dhan xooggiisii sheekhaadoo dhan xooggeedii meesha la jiro horta hoostaan ma aha korkaanaa la jiraa wuxuu korkaas jiray marka oo aan laf kuma shaqaynin siyaasad ah inay magacaas bedesho way ku shaqayn kartaa magac wax la bedeli karo laakiin dhul iyo dad loogu halgamayo xisaab ku jira ma aha weligeed waxay ahayd dhul lagu kiisbaxay kama dagaalamayo lagu kiisbaxayay oo haddii wax qaadanayso qolada hadda maanta soo weerarka soo xaggale lagu soo socday ilaa la siimi 7 kilomitir jigjiga loo soo jirtay ilaa la yiri jigjiga waxaa ka dhici karta doorasho oo maxay ka dhici kartaa waa degantahay Oromo degan maxaa waa degantahay waxa waa dimuqraasi la yiraahdo dhibkaasna wuxuu ka yimid tafaacul xumo iyo dhaqan xumo Soomaalidu leedahay oo hadda aan eed u tirnayo oo aan laakiin Soomaaliduna qayb ka qaato tirkoobteeda taasoo ku soo gabagabeynaya ogaadeen ma tahay maya qofka Soomaaliga Soomaali ma tahay dildila ilaa erer iyo meesi naazireed iyo balbaleeti iyo korkaas ilaa iyo naazireed nalkeeda aan ka arkeen Soomaaliya lixda midna la sheegayo ogaadeen ma tahay in yaroo isqabato tiraha marba isku qasbanahay tirma ogi tirkoobta hadii lagu qaadi lahaa Soomaali ma tahay 10 milyan yaa meesha imaan lahayd daawadayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena diradda kalsan su-aasha ugu dambaysa aan jeclahay Cayduruus inaan weydiiyo bal xalka sidoo ku iman karaa marka adiga aragtidaada bal sidee labadan qowmiyadood ee Soomaalida iyo Oromada sidee ku kala badbaadi karaan xalkaasna yaa door ka qaadan kara Soomaaliya Soomaalinimada fahamta taasoo dagaal u noqon mayso maya miiska constitutionskooda inay Soomaali tahay ayagoo isu dhan oo ciise maqneen gurguro maqneen jaarta maqneen midaysan ogaadeen maqneen gabooyo maqneen qabiil harti maqneen isaaq maqneen qabiil Soomaali inta magaca Soomaali midayso baashaan iskale soo wada fariistaan oo hadda calankoodina meesha ka taagan yahay oo soo wada fariistaan oo arrinta inay Soomaali leedahaan ogolaadaan oo aan la ogolaato meesha inay Soomaali leedahay waayo wax badan oo wax lismaayo xukun waa loo deynayaa waa la leeyahay haddii qof madaxweyne qaato inta aanan aadin wuxuu yiri heerada isaaran waa hagar tolkay nin hawshu kale ku haatan dabadeed nin walaal rooga la baday intii loo hogaambar la harjada jaamacadda yurday midnimada baxalkiis aad iyo aad wata daawadayaal guud ahaan barnaamijkeenii diiradda kalsan oo toddobaadkan aan si gaar ah diiradda ugu saareynay khilaafaadka ka dhex aloosan Soomaalida iyo Oromada degta dalkaasi Itoobiya inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxa igala qayb galay Ustaad Cayduruus Maxamed Cabdi Afsagaaro anigoo Ismaaciil Sheekh Khalifa farsamada waxa gacan ka geystay Cabbaas Cusmaan Xaji intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan lamid ah toddobaadka dambe ee biidinkii waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadiino